iyadoo dhowaan ay ahayd markii dagaal isqabqabsi la xiriira dhulbeereed uu ku dhex maray deegaanka Kabxanle ee gobolka Hiiraan una dhexeeyay laba maleeshiyo beeleed oo wada degta deegaanka Kabxanle. Mid ka mid ah ugaasyada ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaana eedeyn kulul dusha kaga tuuray qaar ka mid ah warbaahinada dalka ee wariyaasha sida aadka u bunbuniya kicinta maleeshiyo beeleedka. sidoo kalena qaar ka mid ah warbaahinada ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay inay yihiin kuwo la lushqaatiyaal ah. ugaas maxamed ugaas abshir xaashi oo ah ugaaska beesha surre ee degta deegaanka Kabxanle ee hoos tagta gobolka Hiiraan ayaana wuxuu sidoo kale sheegay in aysan al-shabaab la shaqeyn been abuurna ku tilmaamay ugaaska u waramay Simba. dhinaca kale ugaaska ayaana tilmaamay in haatan saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda ay qayb weyn ka qaadanayaan kicinta dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday deegaanka Kabxanle ee gobolka Hiiraan, taas oo ugaas ku sheegay in dowladda looga baahan yahay inay soo fargeliso arrinta Kabxanle. saxaafadda madaxa bannaan in gubistii Kabxanle ay xataa militariga dowladda ay qaybka ka ahaayeen. taas runtii waxay u baahatay inkastoo cadeymo ku filan aan haddaba hayno in aan markaa saxaafadda aan la wadaago cadeymo mug leh. ilaahay xamdigiis intii aan bataa la gaarin oo arrintaas weliba aynu ku balansaneen waxaa soo hadlay oo arrintiiba ii waaga ka bariya ka dhigay kuwooda ugu waaweyn oo khibradda saxaafadda sheegtay. ilaahay xamdigiis wuxuu markaa soo bandhigay in ay gubistii Kabxanle iyo nin ka mid ah saraakiisha militariga oo Colonel Tredishi iyo General Tredishi oo wuxuu ku sheegayba balse la saxaafadda laga heli karo asoo dhahayo waan gubaynaa iyo reerahooda ciyaalkooda waan naqaanaa al-shabaabkii qarxiyay. taas marka horaa loo hayaa oo kulle asbuucyo kor ama maalmo ka hor intaan Kabxanle la gubin iyo arrintaas soo bandhigay. marka arrintan marka oo bandhigana wuxuuba hadalkaas uu ninkaas sarkaalka uu sheegay iyo gubistii Kabxanle iyo sababtii loo gubay wixii dhamaaba hal meel ayuu waasar sawir dhan oo dhammaystiran oo caddeyn ah iyo ka bixiyay. arrintaas ayada ah mar kale iyo mar kale waxaan codsanaynaa in ay dowladda runtii inkastoo ay dhalin weyn ay leedahay xaqiiqatan markii si dhinac looga fiiriyo markii la gubay iyo dagaaladan waa ka hadleen balse wax aan bayaan iyo baaq ahayn kama hayn. weli sida kiiska hadda Grand Tahliil uga hadleen ama u istaageen ugameena hadal lagamana ka soca ka dhacay lisma weydiin deegaan dhan degmo dhan oo dab la qabasay weliba ay ka qayb qaadanayaan awal marka waxaan codsanaynaa sida ay ku timid in loo saariyo al-shabaab laguna gubo. teeda kale ma garanayo caqliga ogolaanaya iyo sharciga ogol mid madaniya iyo mid islaamba in al-shabaab waxa ay geysteen allah ka dhigay xataa gabadha uu qabo ama waalidkiis ama aabiis ama walaalkiis in loo qabsan karo wuxuu nin al-shabaab sameeyay. aqliyadda caynkaasna dee kulley waan aragnaa arrintaana waxa waaye wax hadda aan keenayo ma aan waa war saxaafadda la hor keenay oo nin sargaal ah oo la hortaagan yahay dad noocaas inay meesha ku jiraan oo maanta saraakiil noo yihiin ama dowladda ayba nooga tirsan yihiin. Kabxanle gubistiisana qorshe weyn yaa ka dambaysa oo loogu talagalay dadkaasi in deegaanka Kabxanle waxaa marar dhowr ah ku soo laabtay dagaal beeleedyo kuwaas oo u dhexeeya maleeshiyo beeleed wada degta deegaanka Kabxanle ee gobolka Hiiraan.